Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa qeybteennii afraad ama waa part 4kii doorkan waxaan ku dhigan doonaa sideeba data looga soo access gareeya database-ka looguna soo bandhiga MVC-ga inagoo isticmaali doona entity framework. Marka videogeena waxaan ku arki doonaa sida loo sameeyo entity framework-ga ee loogu shubo computer-ka, sida loo create gareeyo DB context class-kii iyo model-kii. Sidoo kale waxaan arki doonaa sida xog looga soo akhriyo database-ka ee aynu uga soo akhriyi doono database-ka uguna soo akhriyi doono maxaa la yidhaahdaa controller-keena kadibna aynu display gareyn doono. Waxa kaloo casharka inoogu xiga aynu ku arki doona sidee baynu ugu darnaa iyadana hyperlink aynu ugu dari karanaa ama linkyo marka haddaad doonayso inaad xogtaa detailskeeda aynu helo intaynu click siino aynu sii detail garayno. Intaasoo dhan waxaynu ku samayn doonaa best practice iyo codekeena oo very clear ah samayno. Marka hore waxaad soo kicisa Visual Studio-haaga. Markaad Visual Studio aan soo kicino waxaan leenahay create new project. Kadibna waxaynu dooran doonaa ka inoogu taala ASP.NET Web Application .NET Framework maadaama framework isticmaalin. Haddaad xaggan ka weydaarsan taligana waxaad ka baari doontaa xagga liiskan. Si ay markaa usoo yaraato waxaa la doortaa C# kadibna waxaad dooranaysaa Windows kadibna waxaan dooranaa web kadib halkaasaynu ka baaraynaa waxaan dooranaa ASP.NET Web Application .NET Framework. intaa markaad saa u hesho waxaad hubinaysaa in luuqadu tahay C# kadib waxaan leenahay next. dabadeedna project-gaagaad magac u bixinaysaa. tusaale ahaan aynu idhaahno registration form MVC. dabadeedna waxaan leenahay create new project. intaa kadib waxaanu dooranaa halkay ku taalla MVC. dabadeetna waxaan leenahay create. maadaama oo aynu isticmaali doono entity framework oo inagoo examplada dambe isticmaali doona add.NET-kii hadda waxaanu isticmaali doonaa entity framework. marka waa inaynu kusoo dejino project-geena entity framework. sidee loogu soo dejiyaa entity framework? markaasaynu entity framework usoo dejino marka hore waxaan tegi doonaa halkay ku taalla tools kadib waxaad ku dhufan doontaa NuGet package manager kadibna waxaan ku dhufanaa manage NuGet for solution. dadna waxaan tegnaa halkay ku taalla browser kadibna waxaan ku dhufanaa halkay researching-ka dadna waxaan leenahay entity framework 6 EF keliya EF6 markaynu idhaahno halkan inoogu soo baxay. marka kanaad dooranaysaa dadna halkan tigta saarna si project-geena loogu daro kadibna waxaan leenahay install. intaa markaynu samayno waxaan leenahay apply kadib waxaan leenahay accept. marka uu saa inoogu dhammaystiro stepka labaad aynu qaadina waxaynu tagno solution explorer-keena deedna outhide ka baan ku dhufanaynaa. marka halkan aynu imanaynaa maxaa la yidhaahdaa folder-keena koowaad waxaa inoogu jira controller-risk. marka kuwana waynu isticmaali karnaa kuwa cusubad leedahayna waynu samaysan karnaa. marka kan waa sample-kii hore ee ku jiray. haddaynu tusaale ahaan inagu doonayno mid aynu leenahay inaynu samaysano waxaynu odhanaynaa controller kadibna waxaan leenahay mid empty noo door dabeedna magac baynu u bixinaynaa. haddaad doonto kan default-kaaba ku daa haddaad doontana anine magaca doonto u bixiso. tusaale ahaan inaynu idhaahno student kadibna waxaan leenahay add. controller-keenu inoo samaysmo sidoo kalena waxay noo samaysmay folder-keena ahaa view-ga oo ah halka ay inoo gelayaan dhammaan wax alla wixii view oo dhan. sidoo kale waxaynu samaysanaynaa model-keena model classes-kii baynu samaysan doonaa. markay intan aynu diyaarsano waxaynu tegi doonaa inaynu model class-kii diyaarino. waxaan leenahay add kadibna waxaan leenahay class kadibna class-keena aynu magac u bixinan aynu idhaahno tusaale student model kadib waxaan leenahay add. deedna properties-kii aynu u baahnayn oo dhan ayaynu halkan ku qoranaynaa. waxaan leenahay public integer student ID. markaasaynu waqtiga usoo koobno hal mar ayaan wada markaynu modelkii oo dhan saa u samaysano hadda property-yadii student ID first name last name gender-kii roll number-kii date of birth-kii age-kii email-kii phone number-kii address-kii iyo enrollment date-kii oo aynu uga jeedno iyada waqtiga qofka la diiwaangeliyey. intaa markaynu dhammaystirno waxaan tegi doonaa connection-keena inaynu soo abuurno. marka si aynu database-ka ula xidhiidhno waxaa mastiya inaynu marka hore connection abuurano. waxaan leenahay connection string kadib waxaan leenahay add dadna waxaan leenahay name kadib my connection
kadib qor connection string deedna waxaan qori doonaa serverka magaciisi aniga serverkayga magaciisa waxaa la yidhaha khadar databasekiisana waxaa databasekan isticmaalayna waxaa la odhan doonaa student system maadaama locally database-kayga iyo application-kaygu ay hal computer igu wada jiraan waxaan ka dhigi doonaa integrated security oo ah windows authentication-kii uma baahna username iyo password toona inaan geliyo system.data.sql client intaa markaan dhameeyo waxaan qaadanayaa magaca connection-kayga kadib waxaan ku noqonayaa folderkayga modelka waxaan leeyahay right click kadib waxaan leeyahay add dabadeedna waxaan ku dhufan doonaa classkayga markaa waxaan usoo bixin doonaa db context classkayga tusaale ahaan aan idhaahdo student db context dabeedna waxaan leeyahay add intaa kadib halkan aan ku darsan doonaa db context maadaama aan kusoo darnay entity framework aan ku shubnay sidoo kale namespace isaga automatic igu qormaya hadda qormi waayana oo asaan kare kaa fulaado qaabkaa u qoray oo d for capital iyo b do smaller iyo contextku siday capital tahay aad qortay hadduu error fulo waa haddii namespaceku kaa maqaya saas oo kale dabeedna namespaceku mid kasoo darto waxaad leedahay using system.data.entity intaa markaad qorto errorku kaa baxaya intaa kadib connectionka saynu samayno waxaan qori doonaa class constructorku waxa weeyaan inaynu qorno public deedna classkeena magaciisa marka aynu qorno waxaan leenahay laba dhibcood base dabeedna halkan aynu connectionkeena magaciisa ku qoraynaa markaynu intaa samayno curly bracketkeenu furi waynu soo xidhi doonaa waxaan ka tagnay inaynu bracket ku xidhno deetna waxaan leenahay connectionkeena hadda inoo dhamaystirayay waxaan qori doonaa properkii xogta inooga soo akhriyay database-ka ee ka shaqaysana entity framework-a waxaan leenahay public db set kadibna waxaan ku dhex qori doonaa modelkeeni student model dabadeedna aninem waxa doonto u bixi markaa get student badhe kadibna waxaan leenahay get iyo set intaa markaynu dhamayno waxaynu mar kale tegi doonaa controllerkeeni dabeedna xogta aynu soo akhriyayno si aynu ugu soo bandhigno controllerkeena waxaan u yeedhi doonaa markaa classkeenii ee model classkii shaqada inoo qabanayay oo magaciisu ahaa student db context waxaan leenahay student db context db equal new intaa markaynu qorno kadib xogtan maadaama xogtu ay badan tahay list tahay waxaan kusoo akhriyi doonaa list kadib waxaan leenahay waxaan ugu yeedhi doonaa markaa aan typeka uga dhigi doonaa modelkeenii waxaan leenahay student model class student model deedna lst equal db dot kadibna waxaynu u yeedhi doonaa maxaa la yidhaahdaa properkeenii aynu halkan kusoo dhex samaynay context classkeena kanaynu u yeedhno magaciisu ahaa get student markaynu inta halkan uga yeedhno kadib waxaan leenahay dot to list marka xogtii hadda waxay noo siisay listigan deedna waxaynu xogtii ku taangarayn doonaa xagga iyo viewga inagii hore usoo aragnay xogta marka ay list tahay sideebaa loogu ritaangaraynayaa ma marka aynu ku akhriyayno saddexdii nooc ee ahaa inaynu aragno viewback view data ama inaynu isticmaalay model marka modelka markaynu isticmaalayno waxaynu nidhi waxaan ku ritaangaraynaa xagga iyo viewga marka hadda waxay noo hodho keliya tahay inaynu viewgii samaysano viewga saynu u samayno waxaan leenahay right click add view add bay leenahay halkan markaynu marna waxaan haysanaa laba optionka koowaad waxa weeyaan inaynu isticmaalo empty without model oo ah inaynu inagu wax kasta qorano tableka xogta lagu soo bandhigayo namespaceskii c sharpkii loopkii wax kasta aynu inagu qorano iyo inaynu nidhaahno adigu noo wada samee waxba oo keliya ta modelka iyagoon isticmaal oo aynu halkan oo kale intaynu doorano aynu list nidhaahno kadibna aynu soo doorano student modelkeenii dabadeetana aynu doorano marka modelki taasina waa option labaad marka haddaynu kan koowaad ku horeyno waxaan leenahay add markaynu add nidhaa hore waxaynu usoo aragnay haddii shayguba list uu yahay inaynu namespaceka ka dhigi doono ama list ama enumerable marka waxaan leenahay model enumerable dabadeedna projectkeena magaciisa baynu qori doonaa oo ahaa registration form mvc dot deedna waxaan u yeeri doonaa tablekeeni model column folderkeeni modelis
deedna waxaynu uga dhex yeeri doonaa marka aynu dot nidhaa intelligence wuxuu noo soo qabanayaa wax alla wixii folderkeena ku jira. marka waxaa inoogu jira laba class, mid student db context iyo kii kale modelkeena. marka kaaynu doonaa kan modelka weeyaan, kanaynu markaa dooranaynaa. intaa kadib halka waxaynu ku qoran doonaa tablekii. markaynu tablekii qorano halka waxaynu ka dhigi doonaa thkii oo ah headeradii. waxaa ugu horreyn inaynu nidhaahno roll numberkii ama student id ama roll number aynu nidhaahno roll number. waxaa inoogu xigaya isagana inaynu samayno first namekii, last namekii. markaasaynu waqtiga uga faa'iidaysano isagana. marka aynu sidaa u dhamaysano thka haddana waxaynu bilaabi doonaa calaamadda at for each haddaynu nidhaahno atkaasi htmlkii wuxuu inoogu bedeli doonaa c sharp. waayo waxyaalaha uu leeyahay mvcgu waxaa ka mid ah inaad isku dhex qori karto html iyo c sharp oo sida xaggan sare ka muuqato dot extensionkeena waa cs oo c sharp html. marka si aad queryga aad qoraysaa u noqdo aanu tag u noqon html tag oo c sharp u noqdo code, waxaynu qori doonaa at kadibna loopkan isticmaali doonaa for each. deedna maadaama aynu list xogteena kasoo akhriyayno waxaynu akhri doonaa variablekeena. kadib waxaan leenahay list ama item ama lst oo variable name waxaa doonto in xogta deedna waxaan kasoo akhriyi doonaa modelka. marka waxaan leenahay calaamadda curly bracketka kadibna waxaan furi doonaa trkii kadibna halkan aynu tdga ku dhigi doonaa. deedna halkan aynu ku qorana in nidhaahno item dot kadibna halkan kasoo akhriyana inaan nidhaahno ka ugu horreeya ahaa roll numberkii. deedna control iyo d bayn len saynu badsano kadib halkan ku xigaysan waxaa inoogu xigayaa first namekii, last namekii, genderkii, mid walba midkiisu baad gelinaysaan, date of birthkii, agekii, emailkii, phone numberkii, addresskii, control d kadibna waxaan ugu dambaysiinaa enroll datekii. intaa marka aynu dhamayno hadda haddaynu raan garino project inuu shaqeeyo ayaynu expect garaynayna. laakiin waxaa dhiman weli database-kii iyo inaynu ku maap garayno tablekeena halkan aynu nidhaa which table baa xogtan laga soo akhriyaya modelka lagu akhriyi doono maadaama aynu isticmaalayno entity framework. marka si aynu database-ka uga shaqaysiino waxaan soo kicinaa sql maxaa la yidhaha sql serverkeena. marka hore waxaan usii qoray maxaa la yidhaha database-kii oon magaciisa ku bixiyey student system. maxaa la yidhahdaa kadib waxaan furi doonaa student systemkeenii dabeedna waxaan samaysan doonaa tablekeena. tableka waxaan ku sameeyey inuu xogta valuega inoo geliyo inuu jeegareeyo xogta la gelinaya inay tahay male female ama unknown oo qofka haddii genderkiisa aad garan weydo kala tusaalahaan magacani ma ninbaa mise waa gabadh maadaama jiraan magacyo badanoo rag iyo dumarkaba ka dhexeeya in la isticmaali kara unknownka. ujeedo kale oo inu isticmaalo ma jiro ka saddexaad laakiin ilaahay khalqiga u abuuray waa laba un, waa rag iyo dumar, male iyo female. intaa markaynu samayno aynu kadib intaanu kolomaa samaysano studentka maxaynu uga baahanay student id laakiin kan waa auto incrementio waa identity first name last name gender roll number date of birthkii xilligu dhashay agkiisii emailkii telefonkii lagala xidhiidhay adresskiisii iyo waqtigii la qoray ama uu isdiwaan geliyey. waxaa kaloo aynu samaysanaa table labaad maadaama meesha uu ku jiro roll number. roll numberka waxaynu doonaynaa inaynu isticmaalo inuu ahaado number iskugu jira alfanamada character oo tusaale ahaan aynu nidhaahno magaca iskuulka ama jaamacadda ama halka aad doonayso inaad soo qaadato kadibna anyeerka qofkaasi la qoray deedna aynu number serial oo sequential number aynaynu siino oo 1 ka bilaabmaya to sanadka dambe inagoo sanadkan 1000 qof diiwaan gelinay haddii la gaaro sanadka 2026 inaynu hore karo 2026 waa 1100 qof saas kale inuu sii socon karo numberkii. marka si aynu taa u samayno waa inaynu marka hore numberka u dambeeya aynu table gaara ku kaydsano kadib tableka xog baynu gelina xogta koowaad aynu gelina waa 0 baynu ka bilaabayna. deedna waxaan samaystay haddana procedure oo ah kii xogta aan ku gelinayay. marka procedureka dhexdiisa ayaan kadib variabladana ku declare gareeyey haddana kadib waxaan update gareeyey kii aynu ugu talagalnay inuu inoo hayo roll numberka. kadib marka numberka markaa la gelinayo ayaa la leeyahay kaagii hore plus 1
waa 2 tusaalehaan hadduu markii hore 1 hayay 1 plus 1 waa 2 2 plus 1 3 saasuu wadayaa kadibna marka aynu insertionkiisa u dhamaysano waxaan haddana aynu filin doonaa inaynu execute nidhaahno maxaa la yidhaahdaa procedurekeeni si aynu xog u gelino anuu hardcode ahaan xagga ku geliyey hadhow waxaanu arki doonaa inaynu xagga programka ka soo gelino xogta marka hore aan intaan hal mar iyaga idhaahdo wada execute tabelada ilaa procedureka hal mar ayaan leeyahay execute wax error mu keenin haddaba iminka xogtii baan hadda gelinayaa dabeetna waxaan leeyahay dhammaan xogtayda oo dhan hal mar iyagana execute iyagana wax error iguma soo celin saan u hubiyo markaa in xogta ay gashay database-kii table-keygii sorry waxaan leeyahay select star from table student kadna waa tan xogtii hadda aan duwan geliyey tan aynu rabnaa inaan haddaba xaggan ka soo muujino marka magaca table-keenna ayaynu qaadan doonaa table-keenu samaysana magaciisu waa table student waxaynu ku maab garayn doonaa halkan si aynu ugu maab garayno waxaynu qori doonaa markaa attribute-ka inaynu idhaahno table kadibna calaamadda bracketka kadib waxaynu furi doonaa double codeka deedna magacii tableka ayaynu halkan dhigi doonaa waxa labaad aynu sameynaynaa inaynu isagana qorro attribute kale oo inaynu sheegno ah inuu columnkani inoo yahay primary keygeeni kane inuu yahay primary keygi intaa markaynu sameyno waxaanu tegaynaa markaa indexkeenii oo viewgiya marka waxaan leenahay project hadda noo raan gare bismillah noo soo dhigay xogtii marka xogtii markasoo noogu soo dhigay hadda tablekeenu xoogay ma qurux badan haddaynu doonayna inaynu qurqurxino markaa tablekii waxaanu tegaynaa qaybta viewga maadaama uu inoo watay marka hore projectkeena template sample oo bootstrapkii oo dhan oo saynu kusoo aragnay part 1kii ama part 2kii iyo part 3kii horeba waxaynu qori doonaa class deedna waxaan leenahay table kadibna waxaan leenahay table border deedna dib baynu u refresh garaynaynaa waxaan leenahay refresh waa kasano inoogu qoray haddaynu isnidhaahno maxaa la yidhaahdaa qaybtan sare ee iyagu ah titleka kan aynu ku qoray headerka inaynu wax ka yara bedelo waxaynu odhan karnaa inaynu xaggan tagno salaan class inaynu ku qorano iyo inaynu sameyno table head intaba waynu karnaa deetana nidhaahno pg masalan plug oo kale ama primary plug inooga dhig primary nooga dhig fartana aynu naano textkana waxaad nooga dhigtaa white textkana white ka dhig aynu mar kale refresh nidhaa sano inoo noqonay haddaad doonayso inaad si yara qurqurxiso aad sii kala bedbedesho laymankooda kan aynu leenahay waxaad ka dhigtaa table distribute marka wax alla waxaad doonayso waxaad ku dhex samaysan karaysaa bootstrapkaaga waa kan laymankiinoo kala duwan waxaad doonta aynu ka sameynaa hadda waxaynu baranay sideebaa xog looga soo celiya databaseka inagoo isticmaalana entity framework oo databaseka si xog looga soo akhriyaa looguna soo display gareeyaa viewgaaga markaa waynaga soo aragnay haddaynu very quick recap sameyno markii u horreeyey waxaynu samaysanay model class deedna waxaynu qoranay propertyadii haddana waxaynu samaysanay db context classkeenii kadibna waxaynu kusoo akhrinay maxaa la yidhahdaa property setkeenii connectionkii baynu soo abuurnay isagana aynu xaggan kasoo abuurnay web configii si uu markaa inoogu shaqeeyo db context classkeenani waxaynu soo waxaynu markaa kusoo shubnay entity framework si kan inoogu shaqeeyo waxaynu ku shubnay entity framework si aynu entity framework ugu shubno waxaynu tagnay tool kadib waxaynu ku dhufanay NuGet package kadib waxaynu ku dhufanay NuGet package manage solution kadib halkan aynu ku qoray entity framework 6 dabadeetana saasuu inoogu soo galay markaynu intaa ku shubnay kadib aynu install garaynay waxaa kaloo aynu soo samaysanay inaynu database-keeni soo samaynay kadib markaynu database-kii samaynay tablekii samaysanay kadibna aynu procedure samaysanay inaynu xooga soo gelinay xogtaa markaa aynu gelinay recordskii ayaynu doonay inaynu soo akhrino markaa mar labaad waxaynu tagnay modelkeenii deedna waxaynu ku soo maab garaynay tableka xogta aynu kasoo akhriyayno maadaama aynu entity framework isticmaalano intaa kadib waxaynu haddana waxaynu tagnay haddana controllerkeenii kadib waxaynu u yeedhnay classkeenii db context classkii
waxaynu xogteeni kusoo akhrinay listi ahaan markaynu xogtii ka soo celinay een listigan ku akhrinay waxaynu ku return garaynay viewgii kadibna view baynu samaysanay viewgaynu samaysanay baynu markaa tablekan qoranay deedna xogteennii ayaynu soo loop garaynay si markaa tani inoogu shaqayso oo modelkan inoogu shaqeeyo maadaama xogta modelku sidanay waa inaynu namespace xaggan ku qoran marka intaasaynu kusoo gabagabeynay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu